في بروبين أنا قبرك قبيالة إني تهي روحان كل حجرت ضدك بديعات كده حلوة سيدا الواقع يو لسه سيدا روحان شيادين إن أي تهي شيادين إسج أو إيو ما عرفت واحد سقطر درسومي وإلى بروبين أو إلى سود جنا وبروبين إلى ورادي إلى واحد استوى بروبيا واحد استوى إلى بروبيا واحد استوى إلى بروبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي سلام الدمان انت كو حرين يوتيوب جنال كيغا فرحي سومالي اوفيشال دادكي ليغا بيري ادي ادي السلام يا ما انت maxaa idii wada maanta kursi baa idigu fadhiya halkan waxaan rabaa laba mawduuc inaan ka hadlo labadaas mawduuc ah qabyaalada Soomaalida qabyaalada meel xun inay gaarsiisay idiga sikada horto qabyaalada Soomaalida inay meel xun gaarsiisay waxaan ka hadlayaa laba gabar nimca habi aan ku hor bilaabo nimca habi hees hees 3 sano ka hor la qaaday baa hadda kala kacday oo cadaan iyo madow gaal iyo muslim isku soo qaadeen heestaas oo hadda kala kacday okay markay nimca habi kala kacday heesteeda waxaan la dhahay naag heer hebel waaye ma fahamtay naag heer hebel waaye la dhahay dad baa isku qabsaday baba markii ay ishayso way sidhiga oo kacay waa gabar Soomaaliyeed ma sha Allah nimca habi hadda videogeega ee daawad halkaan ka salaamaya boqoradeedii wallahi waxa tahay qof dhiig Soomaalinimo ku jirto way soo fariisatay waxayna dhahday aniga ma ihi gabar qabiil ee waxaan ahay gabar Soomaaliyeed ma fahamtay way soo hadashay marka maalintii nimanka marka cadaanka ah ama naaga cadaanka ah dal iyo dibid gaal iyo muslim marka isku soo qaadayeen maxay dhahayeen hees Soomaali gabar Soomaali lahjadii Soomaali maxaa la dhahaa calankii buluug intaas la soo qaatay laakiin ma soo qaadanin qabiil calankiisa ama qabiil magaciisa meesha soo qaadan ma fahamtay Soomaaliya qabyaalada meel xun ay idin gashay waxa kala soo haray gabadhan ayadana tartanka quruxda ku guuleysatay waxa isku haysata laba qabiil isku haysata labada qabiil hadda magacooda inta aan ka sheegay ma rabo laakiin waa wada ogtii inta badan waad aragteen laba qabiil isku gudhigan lagu dhaxsan faat aan videoga waxa toosana raal ahaado laba qabiil isku gudhigan labada qabiil isugu dhagan maxaad isugu dhagan tihiin idin leeyahay marka maxaa isugu dhagan tihiin ya labada qabiil isku haysato maxaa isugu dhagan tihiin waxa idin leeyahay gabadhaas tartanka qabiil ma qabatay labada qabiil ma qabteen qabiil gamid ma qabtay tartanka Soomaali maxamed oo qabatay maanta markay koobka soo qaaday Soomaali oo soo qaadaysa qabiilka isugu dhagan tihiin maxay tahay tartanka Afrika ka qayb galaysa iyo galaysa Soomaali oo galaysa iyo koobka soo qaadaysa Soomaali calanka buluug yaa la soo dul saaray taas kale xiraa gabar Soomaaliyeed oo guuleysata laha xitaa qabiilka meesha idin galay waa xanuunsantii waa wada jirantii qabyaalada idin dileetay idinka dhan qabiil hebel waa gabadhiya isku dhagantihiin midda kale nimca habi way soo hadashay laakiin waa qof weyn gabadhan ilmo way oo qurbo laga keenay hatta hab Soomaali hatta si fiican u ka seen inay idin soo friistrunta idin ma sheegi karto laakiin anaga runta idin sheegayna runta idin sheegayna oo tartanka dadka qabta Soomaali waaye tartanka qofka dadka ugu qayb galaysa magac Soomaali ugu qayb galay magac qabiil ugu qayb galaysa maalinta guuleystana Soomaali oo dhan guul u soo hoyatay waay Soomaali oo dhan wada farxayso ma qabiilka idin dishay Soomaali qabiil meel xun idin galay qabiil subxaanaka ya ilaahay waa qabyaalada hadda wax la iska qaacina ee tahay ruuxaan la iska qaacina waa shidi lahay ani waa ka shidi lahay dadka abaseeraha ugu horeeyo oo ka shida dadka Soomaalida qabyaalada ka saara noqon lahay ana noqon lahay wallahi waan baran lahay ana noqon lahay abaseeri ugu horeeyo idiga seer lahay oo jinnidi oo shiyaadiin jirka idiga jiro maskaxda idiga galay baqtiga qabyaalada waa idiga saar lahay ana ugu horeeyo dadka idiga saar lahay laakiin aawi hadda laakiin xogaa waxaan maqlay inay yihiin wax jirka Soomaalida dhiigooda iyo maskaxda ka galo oo xogaa xanuunsan sida shiyaadiin dadka loo shidaayo oo ayaamanka loo shidaa inay tahay xanta soo gaartay ma fahamtay xanta soo gaartay waxaan rabaa ina aniga idigu bilaabo ko ana idiga shida dadka daawanayo dhan hadii qof kasto ay arko videogeega arko hadoo qabiileystay yahay markoo videogan daawada hore ugu baxaya qabiilka uu ka tagaya ana hadda waa kana soo diyaarsaday idinkii waa soo diyaarsaday waa kana ma fahamtay waa shidi rabaa ma fahamtay waa kana waa shidi rabaa waxa idin leeyahay ya qabiilka hal soo aqoonsada la yirmaahayna sida isticmaalosiin qabyaalada xuma qurunka jirkiina ku jirto waa idiga saara Soomaali diyaar waa luudana soo qabsaha ma fahamtay luudana ku idigu shuwa waa idiga qaacinaya ma fahamtay ya aka
هذه الشدايا وهذا سو دجينا horta السلام عليكم. عليكم السلام. مين مقصا هاواكم مقلا qabyaaladey maxaa taa adiga aniga waxaan ahay dadka jirka dhiiga baan ka galay maskaxda haye maxaa kaleeto waxaa ka galaa meel kasto xubnihiisa ka midka ah maxaa ugu dan leedahay marka inaad dadka sidaas ugu gashid maxaa ugu dan leedahay waxaa rabaa inay qabiilka isku laayaan qabyaalada waxaa rabaa inay isku cirib tiraan waxaa rabaa inay isku kiraasada isku dhacaan waxaa rabaa inay isku gooyaan waxaa rabaa inay isku jarjaraan waxaa rabaa inay wax kasta ay ku sameeyaan qabyaalad darteeda ay kadibna qabiil dartiisa isku taageeraan qabyaaladna isaga soo horjeestaan adeer sidaas ayaan ugu soo galay hadda ma leedahay meel laga saaro adiga adeer aniga waa leeyahay hadda waa fahantay adiga fahantay oo haaf turki adigana waa inaan ku galnaa aniga ma gali kartay wariyaada ani ma ii gali kartiin aniga wax kastoo aad sheegtiin waa ku galeena maskaxda ka galeena aniga meel aad iga gashin ma banaan aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed Soomaalinimada ay ugu weyn adeerya hadda adiga qashkan adiga keentay adiga ana fahantay waa ina adiga aan ku dhex galnaa si aadan hadda dad badan ugu saarin meeshaas yaa ku wada sheekaystay waxaa ku wada sheekaystay meeshaas qabiilkii qabyaaladii waxaa ku sheekaystay afturki waxbaa ka dhacay hadda marka qaski waan fahmay mar kale baa la wareysan doonaa waxyaalo badan commenting ku soo reebay waxaan rabtiin inaan wareysto anaa soo dejina waan la hadlayaa ma fahamtay commenting aad igu soo reebi doontaa marka dad badan waan ka shidayaa hadda idinka inaa idiga shido sida lagu bixiyo waa inaan soo raadiyaa horta sida lagu bixiyo ya waa inaan soo raadiyaa inay wax ruuxaan dadka maskaxda ka gasho oo dhiigga ka gasho oo jirkooda iyo maskaxdooda bedesho ee ta horta anaa keenay waa ogaaday anaa soo ogaaday fahanti sidoo idii sheegayne soo idii sheegay waa ninkii madaxdii ugu weyneed waayo waxaan hadda aan la hadlaanay wuxuu idii sheegay in qabyaalada oo ugu dalneeyahay inay isku dilaan ee isku laayaan ee isku macaaradaan ee isku taageeraan waayo markaan leeyahay isku macaaradaan qabiil ahaan ina qof ugu soo horjeesatid asigoo wanaagsan ee isku taageeraan markaan leeyahay waa qabiil in aad ku taageertid qof daalum ah oo Ilaahay ka furtay oo labada jeedo inuu daalum yahay marka labada dhinac waxa leeyahay marka waa inaan ka hortagnaa migu raacsantii inaan ka hortagno hadda waa inaan shidaa Facebook u galaya live waa ka shidaa waxaan soo ogaanaa laakiin qaabka lagu bixiyo hadda waan ogaanay inay yihiin dad jirka bini aadanka يعني dadka qabyaalaysatada ah dadka ay u nugul yihiin inay galaan waan ogaanaynaa dadka aysan gali karin oo ka raayeen ana keenay taas waa idin sheega videogan kan ku xigo baan ku keeni doonaa hadda waqtigi baa naga dhamaanay ma fahanti videogan kan ku xigo waxaan ku keeni doonaa oo aan soo wareysan doonaa qofka ay galaan oo u nugul inay galaan qaabkay ku galaan iyo sida ay ma aragtay ii sheeg dadka kale aysan gali karin sida ay ugu xoog badan yihiin macnaha qofka muxuu gali waayeen qofkan sida farxiyo kale hadee farxiyo kale inii maxabiyo kale way gali waayeen ma fahanti way gali waayeen dad badan ee gali waayay qabyaalada dadkaas marka sababta nimaxabi iyo hafturka iyo dadka la midka ah sababta u gali waayeen maxaa sabab macnaha ina ogaano waa xitaa dadkaas waa dad caadi aan ahayn oo qabyaalada gali waayay oo meel kasta waan ogaanaynaa dadkaas awoodda ay leeyihiin qabyaalada gali wayso aniga kamid ahay in maxabi ay ku jirto waan ogaanaynaa dadka kaleentana ma aragtay say ku gala qaabka ugu fudud waan ogaanaynaa insha Allah inta waxaan idigu soo sheegi doonaa video ka xigo insha Allah commenting ku soo reeb hada waxay iska dareent adi hadda ma aragtay xogaa waa luudanta iyo waxaan la shiday xogaa hada qabiilaysta tahay waa iska dareemay jirkaaga ka kacaayo xogaa in la qabtiyo dareema qabyaalada jirkii baa ka kacay oo nuuxsanaya marka waxaad ogaanaysaa waa laga saaraya haduu kugu bilaw yahay cudurkaas hadii hore aad u qabtay haduu kugu balaartay
ولا جارة أدي كل دوديس أنا كينا إن شاء الله تعالى حديك تجاه سلاس إيوه نمت جلي قبيلة وقرنة قبيل وحاول ترى صومال لماذا عين قبلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبها ماشى